السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا meel kastoo aad joogtaan waxaynu soo gaarnay casharkeenii sideedaad barnaamijkii luqadda ingiriiska gaar ahaan koorsadii bilowga ahayd ee inoo socotay. qodobada aynu ku baranayno waxaa ka mid ah casharkan vocabulary about family. vocabulary about family. vocabulary waa erayo about ku saabsan family. erayada ku saabsan qoyska, eray bixinta qoyska ayaynu ku baran doonaa sida loo kala magacaabo dadka qoyska marka la joogo luqadda ingiriiska. waxaan kaloo ku baran doonaa members of the family, xubnaha qoyska. members of the family, xubnaha qoyska. ugu dambayntiina casharkeenu qoyska ayuu u badan yahay, waxaynu ku qaadan doonaa pets and domestic animals. pets xayawaanada rabaayadda ah and domestic animals iyo xayawaanada guri joogta ah ee guryaha iyo jooga xaafadaha agahooda iyo xaafadda. intaas ayuu ka koobnaan doonaa casharkeenu. waxaan filayaa in wax badan aad kala dhex bixi doonto isla markaana ay kaaga kordhi doonaan ee aynu hore u galno. vocabulary about family. vocabulary about family. vocabulary waa erayo about ku saabsan family qoyska. male horta waxa waaye male waa lab. male waxa waaye waa lab. female dhadig. female iyo male. inta badan markii waraaqaha la buuxinayo ama shaqooyin ha noqdaan ama waxbarasho ha noqdaan, inta badan waxaa lagu soo kala qoraa female iyo male. inaa marka si fiican u kala fahamto aadan isku qaldin aan rajay doonaa. male waa lab, femalena waa dhadig. marka erayadan iyo kuwo kaloo soo socda dhammaantood dadka qoyska ayay ku saabsan yihiin. boy wiil, boy wiil. gaal gaal gabar, gaal gabar. father aabe, father aabe. maxaa ka soo horjeeda mother hooyo, mother hooyo. brother walaal, brother walaal. sister walaal, sister walaal. soomaaligu ma kala lahaa walaasha gabadha ah iyo walaalka waa wada walaal. marka waa walaal ama walaasha waaye walaasha. brotherna walaal, sister walaasha. uncle adeer ama abti. uncle adeer ama abti. ingiriisku ma kala saaro, labaas isku si ayuu u yaqaanaa. uncle abti ama adeer. aunty eedo ama habaryar. nephew gabadha waa wiilka adeerka ama abtiga loo yahay. nephew wiilka adeerka ama abtiga loo yahay. niece gabadha habaryarta ama eedada loo yahay. weliba waxaynu ku guda jirnaa vocabulary about family, erayadii ku saabsanaa qoyska. dhinacaana waa dhadigii, dhinacaana waa labkii. male lab, female dhadig. grandfather haddii la rabana waa la isku daraa, haddii la doonana waa la kala goyaa. grandfather awoowe. maxaa ka soo horjeeda grandmother ayeeyo. stepfather waa adeerka hooyo qaba, qof hooyadiis qaba. stepfather adeer. stepmotherna eedo, islaanta uu aabba qabo. father in-law sodob. father in-law sodob. mother in-law sodo. brother in-law dumaashi. sister in-law dumaashi. saddexdan ku qoran cagaarka ayagu waa isugu jiraan lab iyo dhadig, ma kala laha. oo cousin waa ilmaadeer, waa qofka ilmaadeerka aad tihiin. gabaruu noqon karaa, wiiluu noqon karaa. cousin. children waa caruur, ilmahaas waxay noqon karaan dumar ama rag. parents waa waalid, waalidkaasna waxay noqon karaan aabe ama hooyo ama waalid kale. parents
parents والد saddexdaan marka ma kala lahaan lab iyo dhadig cousin ilma adeer children caruur parents والد hal mar aan soo dul cararno marka hal mar aan soo dul cararno waa vocabulary about family waa erayo ku saabsan qoyska male dhadig male lab male lab female dhadig female dhadig boy wiil gaal gabar father aabe mother hooyo brother walaal sister walaasha uncle adeer ama abti auntie eedo ama habaryar nephew wiilka adeerka ama abtiga ama habaryarta ama eedada loo yahay niece gabadha abtiga ama adeerka ama habaryarta ama eedada loo yahay male lab female dhadig grandfather awoowe grandmother ayeeyo stepfather adeer hooyo qaba stepmother eeda aabba qabo father-in-law sodog father-in-law sodog mother-in-law sodo brother-in-law dumaashi sister-in-law dumaashi oo gabar ah cousin ilma adeer children caruur parents waalid waxaan u gudbaynaa markaan ayagii oo loo sameeyey si sawir ahaan si fiican aa u fahamtid oo maskaxdaada ay u galaan qaybtan koowaad aan eegaynaa marka hore waa Mary's family calaamadaas iyo esta markaan waxay muujinayaan lahaansho gabadhan Mary la yiraahdo inay qoyskan iska leh uu qoyskeeda yahay ana qoyskiisa soo jeedo marka Mary waa tana ninkeedina waa kana husband ayadu waa wife dabcan waa arki doonaa husband ninkeedi waa kana labadaana isku dhaleen cunug oo dhoota gabar daughter gabar ama daughter son wiil labadan cunug ay dhaleen oo ah daughter gabar iyo son wiil maxay yihiin children waa caruur labadan cunug ayay sii dhaleen labadan waa kan dabcan son waa kana ayaa wuxuu sii dhalay labadan cunug Mary marka maxay u tahay garaani daughter waa gabar eeye u tahay iyo garaani son iyo wiil eeye u tahay wiilka eeyada loo yahay maxaa la yiraahdaa garaani son gabadha eeyada loo yahay maxaa la yiraahdaa garaani daughter eeye u tahay maxay yihiin garaani children caruurta eeyada loo yahay ayaa wax la yiraahdaa garaani children si fiican u fahno warkaan dhan ama sawiradan dhan waxay ku socdaan Mary maadaama lagu yiri Mary's family qoyska Mary waa tana ninkeediina waa kana husband ninkeeda husband waa nin labadan cunug ay dhaleen labadan cunug maxay isku yihiin children caruurta dhaleen children waa caruur labadan cunug ay dhaleen oo kala ah daughter gabar iyo son wiil sankii waxa uu dhalay wiilkii labadan cunug dhalay labadan cunug Mary maxay u tahay garaani daughter waa gabadha eeyada u tahay ilaa wiilkeeda dhalay garaani sanna eeyada u tahay wiilkeeda dhalay maxay isku yihiin labadan garaani children caruurta eeyada loo yahay caruurta eeyada ama awoowaha loo yahay garaani daughter waa cunug eeyo ama awow loo yahay gabar eeyo ama awow loo yahay garaani sanna waa wiil awoowe ama eeyo loo yahay garaani children waa caruurta children waa caruur garaani children waa caruurta eeyada ama awoowaha loo yahay oo Mary ayaa eeyo ah sidoo kalena waxaa awoow ah husband oo ninkeeda qoyska Mary halkaas aan ugu soo gudbo waxaan u imaanaynaa Sarah's family qoyska Sarah waa tana brother kan waa walaalkeed labadan ayaa dhalay parents waalid labadan waalidaa dhalay parents waa waalid
islaantii waa tanaa waxaa dhalay labadaanaa dhalay labadaan ayaa dhalay marka labadaan maxay u yihiin saara hawshu ilaa saare ku socotaaya grandmother ayay u tahay saara kana grandfather ayay wuxuu yahay awoowe grandfather awoowe grandmother ayay waxaasay u yihiin saara labadooduna maxay u yihiin grandparents waa ayeeyo iyo awoowe ayay u yihiin saara brother waa kana walaalkeed parents waalidkoodna waa kuwana islaantan waxaa dhalay labadan duqaa dhalay grandfather ayay u yahay saaro awoow u yahay grandfather ayay u yahay saara grandmotherna ayay u tahay odagaan saara awoow u yahay duqdaana saara waxay u tahay ayeeyo labadooduna maxaa la isku yidhahdaa grandparents ayeeyo iyo awoowe grandparents ayeeyo iyo awoowe parents waalid brother waxaan u imaanaynaa markaan Pablo's family waa la sii balaariyay markaan Pablo's familyga ama qoyska Pablo waa kana soo markiisi father abis waa kana aabbo waxa kaloo la yiraahdaa dad iyo father waa isku mid hooyadiisna waa tana mother mom ayaa loo soo gaabiyaa marka la joogo US ama Mareykanka marka UK la joogana mom iyo mom waa mother saddexdan isku macne okay ninkan wuxuu la dhashay aabihiis waa uncle adeer waay Pablo muxuu yahay uncle adeer labadaan ayaa dhalay ninkan adeerkiisa dhalay maxay u yihiin waa cousin waa ilma adeeradiis cousin ilma adeer ayay Pablo leeyihiin labadan cunug oo dhalay uncle ninkan oo adeerkiis ah oo father aabiis la dhashay aabiis waa kana ninkan la dhashay labadan cunug dhalay labadan cunug marka maxay u yihiin Pablo maadaama adeerkiis uu dhalay ilma adeer hooyadiis waa tana islaantan auntie waxay u tahay Pablo eedo waxay u tahay habaryar maadaama hooyadiis ay la dhalatay kana dhashay ilma abtiga iyo ilma adeerka isku si Ingiriis ku yaqaana waa cousin Pablo muxuu yahay ilma abti labadana ilma adeer marka cousin ilma adeer ilma abti iyo ilma habaryar cousin ilma adeer ilma abti iyo ilma habaryar iyo ilma adeer isku si u yaqaana cousin waxa ay dhashay eedada ama abtiga ama adeerka u dhalay cousin umbu yaqaana Ingiriis wife waa tana xaaskiisi waa tana waa walaasha xaaskiisa sister in loo dimaashi ayay u tahay color waxa marsan buluuga oo jeeda asoo ka duwan dad kale maadaama asaga laga hadlaayo oo asoo ku saabsan yahay qoyskan ninkan waxa la yiraahdaa Pablo abis waa kana father ama dad waa isku mid waa aabe mother iyo momna waa isku mid waa hooyadiis ninkan wuxuu la dhashay abis wuxuu yahay marka uncle adeer u yahay labada cunugu dhalay maxay Pablo u yihiin cousin adeer ilma adeer islaantan waa hooyadiis islaantan ayaa hooyadiis la dhalatay aunt maxay u tahay habaryar qofkaanay dhashay gabadhaanay dhashay maxay u tahay cousin ilma habaryar iyo ilma abti ay yihiin Pablo wife waa xaaskiisa Pablo xaaskiisa waa tana wife islaantana xaaskiisa la dhalatay maxay u tahay sister in law dimaashi qaybtan oo ugu dambaysa ayaan u imaanaynaa oo ku saabsan betis waa rabaayad xayawaanka rabaayada sida mukulaashiga wixii lamid ah maxaa la yiraahdaa betis domestic animalsna xayawaanada guryaha agahooda jooga ama guryaha jooga wax xayawaana ee guryaha jooga ayaa waxa la yiraahdaa domestic animals xayawaanada gudaha ana xayawaanada guryaha jooga betisna rabaayad cat marka waa u jeedaa sawir mid kasta ugu soo dul saaray soo ugu fududaado oo horay uga soo qabato cat bisad ama mukulaal ama yaanyoor cat dog a rabbit
rabbit rabbit rabbit bakayle bakayle kaadkii marka lagu soo laabatay waa iska mukulaashii ama bisadii goat 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 ri ri waa ri waa ujeeda fish kalluun halkaan ku dhex jira mana fish kalluun parrot parrot shimbirtaana la yidhahdaa baqbaqaaq ayaa la yidhahdaa shimbirta dadka ka daba hadasho oo qofku markuu hadlo wuxuu dhan ka daba dhahdo waa parrot baqbaqaaq tortoise tortoise diidin waa ujeedaa qolofkiisa snake snake mas waa ujeedaa soo laalaamaya donkey donkey dameer big waa doofaar big doofaar waa chicken chicken dooro ama digaagad sheep sheep lax lax horse horse faras cow cow sac cow sac intaas ayuu ku dhan yahay maanta casharkeenu waa ku mahadsan tahay adiguna ka qayb qaadashada iyo la socoshada casharka waxaan filayaa wax badan inaad ka faa'iiday oo erayo aad u badan la dhihi karo markii loo eego koorsadeenna oo bilowga ah inaad halkan ka baratay inaad ku celceliso qortid fahamtid aan kaa rajeynaya ku dhowaad maanta kaliya casharkan waxaynu ku qaadanaa la dhihi karaa ku dhowaad 30 eray ama ka badanba marka inaa casharkeena oo inta badan maanta eraya ku saabsanaa inaad qabato si fiican u qabato qoraalkooda iyo akhriskooda ayaan kaa rajeynayaa iyo macnahooda sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadaal gaari doontiin dadaal gaari doontiin waxa la isku dhaafay waa dadaalka marka dadka dadaalka lagu dhaafay inaadan noqon ayaan jeclahay oo aan noqoto dadka dadaalka wax ku dhaafay